السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada aragtida official markale iyo muuqaal cusub. barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay 8 goobood ee ugu khatarta badan caalamka oo aadan marna u dabaaltagin. meelo badan ayaa jirta dunida oo loo dabaaltago qabkeedana la hubiyay, laakiin se muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa 8 meelood ugu khatarsan in lagu dabaasho dunida. haddii aad tagto iska jir meelahan aan soo sheegay, haddii aad jeceshahay noloshaada iyo caafimaadkaaba, fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena ama muuqaaladeena subscribe noo saar aragtida official, sidoo kale follow soo dheh page-ka aan ku leenahay barta Facebook-ka. kusoo dhawo barnaamijkeena mahadsanidin. nambarka 8 Blue Holes waxa ay ku samaysantay si qarsoodi ah oo cajiib ah, waxayna abuurantay kumanaan sano ka hor oo si dabiici ah. waxa ayna inta badan Blue Holeska ay ku yaalaan dhammaan dunida, waxayna leeyihiin magacyo guud oo loo yaqaano sida Blue Holes oo kale. inta badan godadkan buluuga ahi waxa ay u furan yihiin dadweynaha iyo dalxiisayaasha. tusaale ahaan, waxaa jira Blue Holes oo ku yaala Red Sea ama badda cas. waxa ay leedahay qaab dhismeed cajiib ah oo isku daran oo leh boqolaal toonel biyaha hoostooda ahi oo lagu naaneyso qabuuraha Davis. waana meel halis badan. haddii aad dalxiis u tagto, fadlan ha ku dabaalan, waa khatar. nambarka 7 Colorful Pools. tani waxay ku samaysmatay si dabiici ah oo ku taal Yellowstone National Park ee dalka Mareykanka. waxay u eg yihiin wax ka yimid duni kale, sida ay u dhadhalaalayso, ay u qurux badan tahay, oo ay u tahay goob dilaa ah. bilaabo 1870kii, barkadahan waxa ay dishay in ka badan 22 qof. runtii aad bay u kulushahay, waxaana sabab u ah meesha dusheedu uu ku yaalo meel fulkaanuhu ka jiraan markastana oo loo yaqaano super volcano. meeshan magna la yiraahdo waxa ay u socotaa u dhow dusha sare, taasoo keentay in heerkulka biyaha uu aad u kululaado oo uu ku dhawaado 235 degrees centigrade. runtii biyahan kuleelkoodii xitaa cuntada waad ku karsan kartaa. marka haddii aad ka fog tahay waad bad qabtaa, laakiin haddii aad dalxiis u joogto, halkan ha ku dabaalan. nambarka 6 Laguna Caliente waxa ay ku taalaa dalka Costa Rica. waa haro loo yaqaano Botos. waa meel nabad ah, lehna biyo nadiif kuna hareeraysan keen. waa mid ka mid ah harooyinka ugu aashitada badan adduunka. saaxiib, haddii aad dalxiis u joogto dalka Costa Rica, halkan ha ku dabaalan si aad naftaada u badbaadiso. nambarka 5 Nironga Crater Lava Lake waxa ay ku taalaa Democratic Republic of Congo. waa meel markasta ka jirta fulkaano, markasta ka qarxa fulkaano. waa harada lava ee ugu weyn ee joogtada ah ee fulkaanaha u qarxa ee dunida ku taal. ugu badnaan dhulka ama heerka ugu sareeya ee heerka lava ee cajiibka ahi waa 10660 feet amba 3250 mayl ayay dhererkeedu jiraa. fadlan haddii aad dalxiis u tagto halkani, waa in aad ugu yaraan aad ka fogaataa kumanaan cagood haradan kuleelka ka jira awgeed. nambarka 4 Pink Lake. waxaad arkaysa maahan Photoshop. haradan waxa ay ku taalaa galbeedka dalka Australia. sida ay u samaysan tahay markaad eegto, waxaad is leedahay
ma kalar ayaa lagu shubay quruxdeedana nafta iyo indhaha kama celin karto. Ka harada waxaa sameeyay amba milixda loo yaqaan algae. Saaxiib, haddii aad dalxiis u joogto ama aad u tagto halkan, ha ku dabaalan, waa khatar aad u daran. Pink Lake waxa ay leedahay milix aad u badan, runtii kuma dhex noola wax kalluun ah sabab la xiriirta milixda oo aad u sareysa. Haddii aad u gasho cilmi ahaan amba cilmi baaris ahaan aad u gasho haradani, fadlan ha ku jirin wax ka badan 10 daqiiqo. Nambarka saddexaad Nisemera Beach, meeshan oo aad u qurux badan. Nambarka 2 Frying Pan Lake. Frying Pan Lake waxay ku taalaa dalka New Zealand. Frying Pan Lake wuxuu ku samaysan yahay biyo diiran. Waxay ka samaysan tahay biyo diiran. Subaxii markaad kor ka eegtid waxaad leedahay waa haro biyaheedu qabow yihiin. Markaad aragto miga ka baxaya inay tahay qabow, laakiin haddii aad aaminsan tahay intaasi ay tahay wax ka dhacaya harada, waad khaldan tahay. Biyaha harada ayaa kuleelkoodu yahay qiyaastii 131 degrees centigrade. Ma aha dabaal oo keliya, laakiin xitaa safar doomaha ee haradani waxay u horseedi doontaa cawaaqib xun. Isla mar ahaantana midabka buluuga ahi ee harada ayaa soo jiidata siyaasha adduunka oo dhan. Nambarka 1 Eagle Nest Sinkhole. Eagle Nest Sinkhole waxa ay ku taalaa Florida ee dalka Mareykanka, waxayna ku taalaa gunta hoose ee biyaha. Waa meel khatar ah. Kuwani waa nidaam weyn ee godad biyaha hoostoodii ah oo leh qolal iyo marino ku fidsan miles, waxayna gunta hoose ee biyaha ay u jirtaa 310 feet. Meeshan waxaa la xiray sanadka markuu ahaa 1999 kadib markii dad badani ay ku dhinteen, laakiinse waxaa dib loo furay 2006. Dadka waxa markii ugu dambeyntii fahmeen khatarta godkani uu markasta uu leeyahay. Haddaba waa kuwee meelaha kugu xamaasada badneyd ee aad ka heshay inta aad daawanaysay videogan. Fadlan commentiga iyo shareka waa dhankiina mahadsanidin.